gabdhaha ardayda oo ka soo jeeda galbeedka dalka ayaa xubnahooda farjiga si qasab ah baaritaan lagu sameeyaa si loogu ogaado in gudniinka fircooniga lagu sameeyay xilligii fasaxa ahaa. warbixintaasi waxaa inoo haya Bashiir Ahmed Dhaqane. gabdho badan oo ku nool galbeedka dalkani Kenya ee ku soo laabanaya dugsiyada kadib fasaxii Christmaska ayaa baaritaan khasab ah lagu sameyn doonaa xubnahooda farjiga si loo ogaado in gudniinka fircooniga lagu sameeyay xilligii fasaxa. Arrintan ayaa looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa falalka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda. imtixaankii qaran ee sanadkii tagay loo fariistay ayaa noqday sanad mucjiso ah oo ay gabdho badan uur ku soo baxay halka kuwa kalena ay umuleen. xilligan ayaa gabdhuhu marka ay iskuulada ku soo laabtaan maamulada qaar ay marayaan arrintaasi iyadoo baaritaano lagu sameyn doono. George Natambia oo ah gudoomiyaha gobolka Narok ayaa sheegay in gabdho badan lagu qasbay inay maraan arrintaasi ku saabsan gudniinka fircooniga ah si loo ogaado in lagu sameeyay iyo in kale.